صبرا صبرا يا بغداد، جيش الغزو سوف يباد، سنحرر أرض النهرين وسنقتل كل الأوغاد. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome back again to Ashraf Academic Online. Kusoo dhawaada Ashraf Academic Online. Waxa inoo socda cashiradeenii imtixaan ahay. Maanta waxayna qaadan doonaa cashir kale aad u xiiso badan. Haddii ay kuugu horeysay oo aad channelka soo booqatid, waxayna ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto asxaabtaadan u share gareyso si ay ugu faa'iidaan. Okay, maanta waxayna qaadan doonaa cashir aad u xiiso badan. Cashirkeena wuxuu noqon doonaa topic موضوع about ku saabsan education waxbarashada and money iyo lacagta. Topic waa موضوع about ku saabsan education waxbarashada and money. AEB ayaa ka wada hadlayo. Okay, ayaa hadalka ku bilaawayna. Wuxuu leeyahay how are you doing my friend? Sidee ayaa tahay saaxiibkaygiyo? How are you doing my friend? Sidee ayaa tahay saaxiibkaygiyo? How are you doing my friend? Sidee ayaa tahay saaxiibkaygiyo? Okay, B ayaa ka jawaabay. Wuxuu leeyahay I am very well, aad ayaan u fiicanahay. And you adigana? I am very well, aad ayaan u fiicanahay. And you adigana? I am very well, aad ayaan u fiicanahay. And you adigana? Okay, ayaa qaadanay. Wuxuu leeyahay so am I, anigana sidoo kale. So am I, anigana sidoo kale waan fiicanahay la micno tahay. So am I, anigana sidoo kale waan fiicanahay. Okay, my friend, saaxiibkaygiyo ayaa wada. Wuxuu leeyahay my friend, saaxiibkaygiyo how do you see? Sidee baad u aragtaa? If we talk, haddii aan ka hadalno. If we talk, haddii aan ka hadalna topic موضوع about ku saabsan education waxbarashada and money iyo lacagta. How do you see? Sidee baad u aragtaa? If we talk, haddii aan ka hadalno topic موضوع about ku saabsan education waxbarashada and money iyo lacagta. Okay, B ayaa qaadanaya. Wuxuu leeyahay oh Allah, that is really good. Run ahaantii waa mid wanaagsan. That is really good. Run ahaantii waa mid wanaagsan. Oh Allah, that is really good. Run ahaantii waa mid wanaagsan. Okay, ayaa qaadanaya. Wuxuu leeyahay which is better for you? Midkee baa kuu wanaagsan? Education waxbarashada and money iyo lacagta. Which is better for you? Midkee baa kuu wanaagsan? Education waxbarashada and money iyo lacagta. Which is better for you? Midkee baa kuu wanaagsan? Education waxbarashada and money iyo lacagta. Okay, B ayaa ka jawaabay. Wuxuu leeyahay I would say, waxaan dhihi lahay. I would say maxaa waaye? Waxaan dhihi lahay education waxbarashada is better than money. Ayaa ka wanaagsan lacagta. Waxbarashada ayaa ka wanaagsan lacagta. Okay, I would say, waxaan dhihi lahay education waxbarashada is better than money. Ayaa ka wanaagsan lacagta. Marka laba shay is barbar dhigaysid, shayga doorbidaysid ayaa mar walba soo hormarinaysa. All right? Okay, I would say, waxaan dhihi lahay education waxbarashada is better than ayaa ka wanaagsan money lacagta. Because maxaa yeelay you have more access to money. Waxaad heli kartaa lacag badan. You have more access to money. Waxaad heli kartaa lacag badan if you are someone, haddii aad tahay qof. Okay, you have more access to money. Waxaad heli kartaa lacag badan if you are someone, haddii aad tahay qof who doesn't want oo una rabin qof rabin. Haddii aad tahay qof aanan rabin a lot of money, lacag badan. At least ugu yaraan you have an education oo aad leedahay aqoon. Okay, you have an education oo aad leedahay aqoon that you can solve, aad ku xalin kartid your problems, dhibaatadaada. Okay, aan ku soo celino. I would say, waxaan dhihi lahay education waxbarashada is better than ayaa ka wanaagsan money lacagta. Because maxaa yeelay you have more access to money. Waxaad heli kartaa lacag badan if you are someone, haddii aad tahay qof. If you are someone, haddii aad tahay qof who doesn't want oo aanan rabin a lot of money, qof rabin a lot of money, lacag badan. A lot of money, lacag badan. At least ugu yaraan you have an education, aad leedahay aqoon that you can solve, aad ku xalin kartid your problems, dhibaatadaada. And you adigana ayuu dhahay sidee ayay kula tahay? And you adigana sidee ayay kula tahay? B ayaa la weydiinaya and you adigana sidee ayay kula tahay? Midkeed doorbida leedahay la macno tahay.
okay ayaa ka jawaabayo wuxuu leeyahay I believe waxaan aaminsanahay money lacagta is better than education inay ka wanaagsan tahay waxbarashada lacagta inay ka wanaagsan tahay waxbarashada because maxaa yeelay without money lacag la'aanteeda there was no education waxbarasho ma jireen without money lacag la'aanteeda there was no education waxbarasho ma jireen I believe waxaan aaminsanahay money lacagta is better than inay ka wanaagsan tahay education waxbarashada because maxaa yeelay without money lacag la'aanteeda there was no education waxbarasho ma jireen and it allows people waxay dadku ogolaataa and it allows people waxay dadku ogolaataa to have inay yeeshaan more opportunity in life fursad badan oo nolosha inay yeeshaan ama ay lahaadaan okay and it allows people waxay dadku ogolaataa to have inay yeeshaan more ama ay lahaadaan more opportunity fursad badan in life nolosha fursad badan ee nolosha inay yeeshaan okay money lacagta can be used waxaad u isticmaali kartaa to buy inaad ku iibsatid things waxyaabo that are not kuwaasoo available aan la heli karin with education waxbarashada okay money lacagta can be used waxaad u isticmaali kartaa to buy inaad ku iibsato things waxyaabo that are not available with an education oo waxyaabahaasoo laga heli karin waxbarashada okay aan ku soo celino I believe waxaan aaminsanahay money lacagta is better than inay ka wanaagsan tahay education waxbarashada because maxaa yeelay without money lacag la'aanteeda there was no education waxbarasho ma jireen and it allows people waxay dadku ogolaataa to have inay yeeshaan more opportunities fursado badan in life ee nolosha okay money lacagta can be used waxaad u isticmaali kartaa to buy inaad ku iibsato things waxyaabo that are not available kuwaasoo laga heli karin with the education waxbarashada alright okay b ayaa qaadanaya wuxuu leeyahay don't you know miyaadan ogeen the money lacagta can end inay dhamaan karto don't you know miyaadan ogeen the money lacagta can end inay dhamaan karto don't you know miyaadan ogeen the money lacagta can end inay dhamaan karto where halka education waxbarashada has no end ay dhamaad laheen where halka education waxbarashadu has no end ay dhamaad laheen so sidaa daraadeed thank you for your idea waad ku mahadsan tahay fikirkaaga thank you for your idea waad ku mahadsan tahay fikradaada so see you later is aragti dambe okay don't you know miyaadan ogeen the money lacagta can end inay dhamaan karto where halka education waxbarashadu has no end ay dhamaad laheen so sidaa daraadeed thank you waad ku mahadsan tahay for your idea fikradaada see you later is aragti dambe okay intaas ayaan idigu soo talagalay waxaan filayaa haddii aan nala imaatay cashirka nimaadkiisa inaad ka faa'iiday caafimaad ayaan ku rajaynayaa ilaa aan ka kulmayno cashir kale aad u xiiso badan